السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا waa idin salaamay meel walba adduunyada ka joogtaan magacayga waa Xafsa haday taa markii ugu horeysa janaalkay soo booqanaysa fadlan subscribe ii saar hore haday ila joogto ku mahadsan tahay maanta waxaa idin wadaa bariis si fudud loo sameynayo isku karis ah insha Allah isla socod wanaagsan codkaygana xabeeba ku jirto waa hargabsanahay hadda sida ujeeda saliideen oo noo soo kulaatay basasha ayaa ku dari doonaa waa xabad basal oo weyn oo soo jarjaray basasha waa ku shiili doonaa markay ku shiilanta kadibna waxaa ku dari doonaa hilibka wax yar ayaa ku qaleyn doonaa kadibna xawaajiyada ayaa ku dari doonaa aad iyo aad u bariiska u fudud yahay 1 2 3 waaye 5 daqiiqo ugu soo tuuranaysaa qof weligii cunto karin xataa wuu karin karaa dhib badan ma lahan insha Allah ugu dambeyn markuu soo baxo ay arki doonaa sidoo ku soo baxo. The best dua to make is at the time of the last third of the night. Why? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the hadith in Sahih Muslim, he said there's an hour during the night in which no Muslim makes a dua and ask of the good of the dunya and the akhirah except Allah will grant him. Subhanallah. So you could ask for dunya matters. You want success in school, in your job, success in dunya, success in your health, feeling better, peace at home, righteous children, whatever you want, or the akhirah, Jannah, the blessings and the pleasure of Allah Azza wa Jal. There's an hour where the dua is accepted. And another hadith, Subhanallah, where Rasulullah told us that Allah descends upon the first heaven in a way that befits His Majesty. And at that time, my brothers and sisters, please lend me your ears and your heart. There's a period of time at night, the last third of the night, Allah Azza wa Jal, the one who can do anything, the one who can cure any disease, the one who can cover any debt. At that time, He is asking, what do you want so I can give you? هل من سائل فأعطيه? Allahu Akbar. So if you are in dire need of any matter, please make it a habit to get up in the middle of the night and beg Allah Azza wa Jal. When we come to one another, we beg one another for hours over the phone, or when we see each other, please help me, please. And subhanallah, the one who has the keys for your problem, the one who has the solution, we hardly ask him sincerely. Subhanallah. It is a reason to enter Jannah. The first hadith that Rasulullah mentioned in Medina, he said, "O people, spread salam, offer food to the people, and pray at night while people are sleeping, you will enter the Jannah in peace." hadda hilibkan intuu noo bislaanayo sabiib ayaa meeshan ku shiilanaya sabiibka koob biyo ayaa la soo dhigay qadar 10 daqiiqo ayuu biyo ila yilay kadibna saliid ayaa ku shiilaya waliga sabiibka soo sidiisa bacda ugu furtay ugu darin bariisko waayo bariiska khaleelo dhow ka noqonaa wuxuu ka dhuuqayaa dhacaanka oo bariiska dhan oo dhuuqa bariis khaleelo dhow ka noqonaya koob biyo la dhig kadibna saliid ku shiil saliidan waa weyn ku noqonaysa sabiibku waa weynaanaya kadibna waxa ku shiili doona insha Allah karooto oo laba xabo ah soo xoqday just decoration ahaan oo isticmaal aan waa jeclay bariiska marka karootada iyo sabiibka aan ku daro yani qurux ku soo baxay bariisko mar walba ku darsadaa optional waa hadaa jecleen qasab ma aha oo ka dhaafsanaysa. تدخل الجنة بسلام. So it's a reason to enter Jannah. And it's also a reason to gain the mercy of Allah, which is the only way to Jannah. We all know that the rahmah of Allah is the key to Jannah. And Rasulullah said, Allah will shower His mercy on a husband that get up in the middle of the night and wakes up his wife to pray tahajjud. And Allah will shower His mercy on the wife that gets up in the middle of the night and wakes up her husband to pray tahajjud. And in another hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when a man, he said, wakes up his wife in the middle of the night and they pray 2 rak'ah together. They pray 2 rak'ah together, they will be recorded from الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. They will be recorded among the people who remember Allah abundantly. Subhanallah. Look at all these rewards, over 11 rewards. hilibkeena hadda wuu bislaaday biseel saaid muusan noqonin waayo dab labaad ayuu maraya bariiska ayaa ku kari doonaa bariiskana biyo ayaa la dhigay qadar oo 1 saacad biyo la yilay waayo bariisku wuxuu ka saacidayaa marka biyaha la dhigtid furfur dhow ku noqonaya bariis dheer ku noqonaya mana ka raba dab badan biyo badan xataa ma ka qaadanayo ciyo bislaanaya 10 daqiiqo bislaanaya waa galaas iyo bar bariis ah biyaha waa soo karkarsada kor ayaa kaga shubi doonaa markuu biyaha adi wax yar guursado oo bariiska ka hoos mar biyaha
waxaa kusoo dari doonaa vegetable khudaarta cagaarna ku dari doonaa markuu biyaha oo guursado koos marana waxaa ku dari doonaa insha Allah shacfaraan laba kalar isticmaalaa mid cagaar iyo mid oo jaalo ah kadibna sabiibkii iyo karootay soo shiila ayaa ku dari doonaa waa huuri doonaa kadibna saxanka markaa soo saaro insha Allah markaas arki doonaa sida ku soo baxo words, the ones you just mentioned, about how great is this ibadah. So what is stopping us, ya ikhwan, from putting the alarm just a little bit earlier than the time of Fajr? Now, one of the sunnah of Qiyam al-Layl is to start it by 2 light rak'ah, like Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the hadith in Sahih Muslim, Aisha said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when he used to start the Qiyam al-Layl, he used to pray rak'atayn khafifatayn, brief, short 2 rak'ahs, and then he would start the longer rak'ah. And one of the sunnahs also is when he wakes up alayhi salatu wasalam for Qiyam, he used to recite the last 10 ayah of Surah Ali Imran. Now, my brothers and sisters, please, tonight, make the intention that you want to get up for the Qiyam al-Layl. Make the intention that you are going to perform Qiyam tomorrow, inshallah ta'ala, this night. Why? Even if you sleep and you made the right intention, you will be recorded as if you have performed Qiyam. Subhanallah. So make the intention before you go to sleep, and inshallah, Allah will reward you. And my brothers and sisters, if you find out that it is very hard for you to perform Qiyam, if you have tried everything, you slept early, you put the alarm, you ask your spouse to wake you up, and still you're not performing Qiyam, then check your sins. Check your sins. bariiskan inta noo hura insha Allah waxaa sameysanaynaa sooskii aan ku cuni lahayn sooskana idinka ka faa'iideyna aad iyo aad u macaan badan yahay baaquliga hadda waxa igu jirto waa 3 qaado oo yogurt ah qajaar ah soo xoqay waxaa ku darayaa nus qaado cusbo ah waxaa kaloo ku darayaa jahli dhanaan ah soo miiray waxaa kaloo ku darayaa kabsar caleen ah soo jarjaray iyo nus qaado basbaaska budada ah ku darayaa ani basbaaska aad u jeclahay wax walba oo karna ay cunto basbaas ah ku daraa maybe Chinese wax ay galay ma ogi basbaaska iska jeclay ilaa amarkiis cuntada dhadhan u sameeynaya waa isku qasaya halaas un bogsimisay sooska aad iyo aad u macaan badan yahay sameeysto hubaal oo ka heli doontaan ilaahay baa addoonkaygiyo cibaadadayda iyo taacadayda iyo diinteeda waqti u samee aniguna qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa qina nafsi baahidaadana aniga daboolaya baa ilaahay ka yiri wa illa tafcal haddaad sidaa yeeli weydo oo sameeyni weydo mala'tu yadaka shughlan wa lam asudda faqraka baa ilaahay yiri 24 saaca mashquul baan ka dhigayaa baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay albaabada faqriga laga dabooli maayo ya cibaadi addoommahaygiyo baa ilaahayna leeyahay ya cibaadi subhanallah naxariistiisu ballaarsana qul ya cibaadiya aladiina asrafuu kuwii musrifiinta ahaa ee naftooda ku xadgudbay ee 24 saaca macsiyadii qafladda ku jiray haddii uu ugu yeedhay yaa cibaadii kuwa saalixiinta tukanayna maxaad u malayn magacu ugu yeedhi lahaa dambeyntii marka soo guray oo saxanka soo saaray bariiskan sidan qurux badan ayuu ku soo baxay oo furfurka ah dhadhankiis ayaa ka sii daray inaba caadi ma ahan hadda ilaa inta video soo gaarto waa kaaga mahadcelinaya fadlan hadduu ku cajibi like isaar ray hadaa qabtid commentiga ila soo wadaag asxaabtaada la sii wadaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما